وهديه توستي علما يوقف دعتني وهديه توستي علما يوقف دعتني حاجات ما هو مقيسة halkani waa goobta ay ka socoto xafladda lagu soo bandhigayo buugga Hadiyad Jacayl waxaana buuggani soo bandhigaya abwaanta yar wax yar kadibna jawiga xafladda buuggu wuxuu isu bedelay sida tan runtii Hargeysa ayaa ka soo bilaabantay hawshani iyadoo ujeedka ugu weyn aan doonayna ay noqoto in la dhiirigeliyo dadka lamaanayaasha waxaana soo buuxdhaafiyay goobtani ciidamo kala duwan kadib markii hay'adda wanaag farista iyo xumaan reebista ee gobolka Togdheer ay ka biyadiideen bandhigga buuggani la magac baxay Hadiyad Jacayl waxaana madasha lagu soo casuumay dhalinyaro badan lamaanayaal isqaba taasi oo dhalisay muranka ugu badan waxaanu la kulanay abwaankii soo bandhigayay buuggani waxaanu u dhignaa waraysiga iyagu sida tan wala sugan abwaan Cabdisamed Awdaahir abwaan Sumcadda oo ha abwaankii sameeyay buugga Hadiyad Jacayl ugu horreyn abwaan Sumcadda waa ku soo dhaweynaya telefishinka madaxa bannaan ee Kalson TV waan dhawahay waan salaamayaa Kalson TV iyo shaqaalaheedaba waxaad naga warbixisaa baryahanba waxaad wadiy buugga la yiraahdo Hadiyad Jacayl bal ka warran ujeedka buuggani iyo waxa uu daaran yahay sababta aad u samaysay buuggani horta buuggani waxaan markaan la soo gaabiyo waxay noqonaysaa barashada jacaylka anigoo jacaylka ka dhigay cilmi la barto kuna soo koobay dhammaan culumtii ku saabsan jacaylka dadkuna ay ka faa'iideystaan markaa iyo halkan wajigiisan intaas okay sama هذه سؤالك ما حد وقار بوضو يا ودي الله بوقا waxa la dhahaa hadiyad jacayl waxaan ku saabsan yahay jacaylka anigoo jacaylka ka soo qaaday inuu yahay cilmi la barto kuna daray culumta caadiga la bartay ee maadiga buugani waxaad xalay keentay magaalada Burco kul xaflad baa ka qabsoontay sidaan wada arkaynayna dhamaantiinba waxa jirtay in buugani ay ciidamo ama xafladu intay socotay ciidamo ay soo galeen bal waxaad ka bixisaa faahfaahin buugani sababta ay ciidanka ugu joojiyeen ama ciidamadu soo galeen goobta xafladu ka dhacaysay buugan hadiyad jacayl oo lagu lamaanaynayay
xafladna burco lagu lamaaninayay mid hore oo ka dhacday Hargeysa oo gobolkani ahaa gobolkii labaad ee aan ku soo bandhigno oo agaasinkeedii hawsheeda wadna wiigii u dambeeyay ayaa waxa dhacday in shalay galabnimo aanu is aragnay gudida wanaag farista iyadoo markii hore aanu fasax ka qaadanay maamulka gobolka Togdheer barasaabka la noola fasaxay ayaa haddana waxa ka soo dhex dhacday gudida wanaag farista oo meeshii timid waxba lamaanu diidin waan la kulannay waxaanu sheegnay ujeedkayga iyo buugan wax ku saabsan yahay markaan la kulannay way nala qaateen waxaana nidhi buuga wax xumaana oo diinta iyo bulshada iyo wadciga jiraba saameyn ku leh mid togani muxuu ahaa saameyn xun ku leh ma jirto waxay dhaadeen buugina waa madax banaantiin waxaanu sheegnay in lamaanayaashu buugan hadiyad ahaan isku guddoonsiiyaan oo ay si muxubiye kalgacal ay isu siinayaan waxay dhaadeen qabsada xafladii adoo abaara 8 habeenimo markii aanu bilownay ayaa waxa dhacday inaa ciidanka bilayska oo gudida wanaag fariistu way helinayaan ay naga soo dul dhacaan xafladii istaajiyaan dadkana ku qasbaan inay hoolka ka baxaan oo ay dareeraan taasi runtii midna raali gelisay ma ahayn mid aan ku faraxnay aniga bulshada u heelanayd ee reer Burco ma ahayn runtii aad baan uga xunnahay in gudida wanaag fariista iyo ciidanka bilayska iyagoo indhala oo xog badan hayna ay soo galaan ka hor xafladda inta ka qabsoomay hoolkan ma wargelisan gudida ammaanka gobolka Togdheer ma la xiriireen wax xiriir ma la sameeyeen gudida ammaanka waxa maamula oo gobolka madaxweynaha ka ah barasaabka waan ogeysiinay isagana hoos tagaan hadii wanaag faris tahay oo wanaag faris waxa adeegsantaa ciidanka bilayska ee gobolka marka maadaama awoodii u sareysa gobolkan guddoonsiinay sababaan u guddoonsiino aan aan ogeysiinay sababaan u sheegno qoradan ka hooseysa ma jirto ma jira kulli goobta markii ciidanku soo galeen kulli khasaara kulli ka dhacaya idinka wax khasaara ahaan idinka soo gaaray ma jiraan doorta anaga khasaaro waxa noogu filan inaan hoolkii xafladda aan ku qabsanaynay ee aanu kiraysanay ee hawshu naga baxday indana laga istaajiyo bugaagtii sidoo kale hablihii la bisnaay quruxda badnaa iyo wiilashii isugu yimid ee lamaanayaasha ahaa in iyagana khasaaro uu soo gaadho oo meesha dhalinyaro kale oo iyaguna si khaldan uga faa'iideysanay ay meesha yimaadaan marka khasaaro inahaas noogu filan iyo in kale oo soo bixi doonta ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa bulshada gobolka Togdheer iyo maamulka gobolka Togdheerba doorta anigu Hargeysa ka imid gobolkana waa gobolkaygii si marti baan ugu haasina marti ugu ma ahayno waa Soomaaliland ma dhex jooga marka waxaan ugu baaqayaa maamulku inay u dabacsanaadaan dhalinyarta oo ay eegaan sidoo kalena si fikirka saliimka ee dhalinyartu uu muuqdo ay taageeraan halkii ay ka gardaamayn lahaayeen ugu dambeyntiina waxaanu isku daynay inaanu la xidhiidhno gudida wanaag farista iyo xumaan reebista ee gobolka Togdheer balse nooma aanay suurtagelin Shucayb Xasan Ismaan Shucayb Kingish Kalsan TV magaalada Burco